taagannahay halkanaynu taagannahay waa raasigii dekada berbera. raasigu wuxuu ka mid yahay soolaha dekada berbera amba reserve-ka dhulka reserve-ka ee loogu talagalay dekada. waana dekad ilaahay oo iska samaysan birahan ku taagan ee xagga midigtayga xigtana kuwa badan ay daadsan yihiin. waa astaan amba xaydaab hore loogu sameeyo loogu talagalay inay ilaaliyaan sohdinta dekada. halkan aan taaganahay ee calaamadu ka muuqato iyo jeexitaanku xagga midigteeda ee fog 2 kiiloomitir meel loo jirta ay ka badan oo cagaftu taagan tahay. waxa la soo siiyay imka shakhsiyaad bareefada amba cid gaar ah la siiyay. hawshoodii bay bilaabeen buuxinteedii iyo dhismaheedii oo badal la buuxinayo kiiloomitir iyo bad sida la sheegayo. cidaasi oo ah safiirka isku tagga imaaraadka u fadhiya Soomaaliland yarka Baasha Morgan la ilaalay madaxweynuhu soo dagow yahay iyo Nicolas reer berbera ah oo deelan ganacsado Mustafa la ilaahdo jaabustaan something oo dal lacag wanaagsan xalaal ah busitaalina waxaan ka gelin lahayn ma garanaye. waxaan leeyahay waa nasiib darro maalinba maalinta ka dambaysa wax laga qoomamoodo ay xukuumadda talada haysaa ku tallaabsanayso. waxaanu maqlaynay dekadii berbera DB World baa lagu wareejiyay horumar baa dhacaya dekad baa la dhisayaa meesha wax laga dhisay waa dadka shacbiga la siinayo ee iibinayaan amba inta gaarka la siinayo. halkii waxay horumariyeen maynaan arag shaqaabuurkii la sheegay xukuumaddu sheegaysay ee dadku sheegayeen ee laha shaqa laga helaya kuwii hore ee shaqeynaayo aba badbadani iska tageen amba dadka xeebta ku nool magaalada berbera ee xagaagu dilay ee leyn la'aantu hayso tanaasilaad iyo dala yaryar oo ka soo gali jiray iyo waxyaabo laga yaabo dadka Soomaaliyeed liita caawimooyin ay ka heli jireen uma meesha laga saaray. boqolaal reer Soomaaliland oo reer berbera iyo reer Togdheer iyo reer Hargeysa ku jireen oo badan oo madax dhaqameed iyo wax kasta ku jireen oo gulooyi qaadan jireen waa laga gooyo. laakiin wax soo kordhay ma jiraan. shirkeedii iyo qoorteeda Allah isku xidhay waxaan garanayn wax taariikhda u gali doono laga dhaxli doono xukuumadan aan la mahadinay talada haysa. meesha berbera la yiraahdo waxaad moodaa dhulkeeda haday tahay dibadaha koreyaasha kale haday tahay dhulka qaaliga amba qiimaha leh waxa laga soo bixiyaa halka deegaanka ka bixin lahayn guriga madaxtooyada laga soo bixiyo. waxaana horu dhacday in madaxtooyada Soomaaliland laga soo saaray wareegto lagu cadeynayo dhulka badda u dhow ee la dhulaynayo amba cid la siinayo inaan badda loo jirta 200 mitir oo mamnuuc tahay 200 mitir loo jirto badda wixii ka fogun la bixin karo. mar dhaweedna la soo saaray in la fuliyo oo hadii wareegtada la jabiyo lagu dhaqmo oo 40 kiiloomitir halku dooxa biyo guura badda ka galo iyo dooxa baba halku badda ka galo ilaa 40 kiiloomitir oo nimanka 40 kiiloomitir ku dhex jirno ilaa badda loo jirsan karin. halkan hadana waxa lagu bixiyay wareegta kale madaxweyne. waxa isweydiinaysaa madaxtooyadu ma 2 meelood ba ma 3 meelood ba miyaanay meel qura u lahayn halka warqadan hore wax mamnuucaysa ka baxday ee hadana tiyo laga soo daba saaray mid wax lagu fasaxayo oo tii hore burinaysa hadana dad waraaq la soo siinayo meel lagu siinayo halkii mamnuucahayd wareegtada hore. wax la yaabi karo waxa jirta magaalo xeebeed kuleyna baynu joognaa dad sabool oo fara badan ku nool yihiin aanu leed jaban aan haysan qofna aanu marawaxad isticmaal karin. qofka saboolkii bishii leerka $30 iska bixin karo hadduu marawaxad isticmaalo $40 $50 ba ku soo qorta. war ummadii dabad halka ku noolayd ee dhimanaysay in madaxtooye gaaraynin in meel gaaraynin ayagoo waxba lahayn oo waxba hayluba wax lagu dul iibinaya ayana waa eegaya. waxay ayaa daradan waxa horseedka amba fududeynaya shacbiga ku nool dhulka Soomaaliland oo waayo mar walba khaladka iyo sharci darrada la sameeyay ayay taageersiin. laakiin waxay idin ka hor yimaadaan oo diidaan oo yiraahdaan shuruucdii dalka ku kafteen ka daga talada iyo xilka.
kuwa reer berberana waa ugu sii liitaan waxaan leeyahay waa aragtaa reer berberow in badan baa wax idii sheegay dhagaha daboolateen wax ka daran baa idinku soo socda mooyisu Soomaaliland qarannimadaba si looga dhaxlito garan mayno diyaaradan la garanay meel ay u socoto cid wada ayay iska wada saaran raalina waa ku tihiin kula dar raalli ku tihiin ilaahayna teed ka qaban maayo xataa waa raalli ku tihiin waadina diidaro banaanada istaagtaan oo hadashaan oo qaylisan oo ka hor timaadaan maanta hadayda sidaa yeelin ka reer mayso ummadooda khaymiinayna markaa wada noo aan dhamaantood islaamin oo dhamaantood islaam ayagoo quru khaymal wadan ma aha kuwana arkaya ku daawanaya ku raalida ama khaymal wadana haddii aan mas'uul kala shacbi la xisaabtamayo oo eegayo oo qaladka ku diidaya aanu jirin meel la ka bayri maayo taladooduna waxay noqotay lacag la doono wax leebi habeenka dambana qarannimada deesay la taag